gaagaaban efemada magaalooyinka qaar facebooka iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan kulanti wacan akhyaarta hawada nagala xiriirtay waa axad 1 bisha Agoosto sanada 2021. barnaamijka dunida iyo maanta arrimahan idinkugu hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo shaaciyay waqtiga uu qabsoomi doono kulanka ugu horeeya ee xildhibaanada golaha wakiilada ee dhawaantan la soo doortay. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka oo deegaanka Qaycad ee gobolka Mudug ee Soomaaliya ku duqeeyay dagaalyahanada Al-Shabaab xilli halkaas uu dagaal ku dhex marayay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab. dagaal culus oo ka soconaya magaalada Lashkargah ee waddanka Afghanistan. diiwaangelinta 10 musharax ee u tartami doona 5 kursi oo ka mid ah 8 kursi oo koonfur galbeed ay ku leedahay golaha aqalka sare ee Soomaaliya oo maanta ka soconaya magaalada Baydhabo. haweenka ayaa loo xiray 2 kursi oo gaar ah. iyo Minnesota oo sanadkii 7aad lagu qabanayo tartanka Quraanka Kariimka. mid ka mid ah dhalinyarada tartankaasi ka qayb galaysa ayaa sida tan dareenkiisa ku muujiyay. alxamdulilah waxaan rajaynayaa inta kaalmo fiican ka helo oo tartankan soo diyaar garoobay intuu ilaahay waafajiyo insha Allah. soddonka juz oo Quraanka dhan ku tartama insha Allah. inta kaalinka koowaanta qaataa rabaa insha Allah biidhnillah. iyo barnaamijkii mawjadaha baraaruga oo maanta oo kala aad maqli jirteen. qodobadaasi oo kuwa kale oo Soomaalida caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan. barnaamijkan ay soo saartay Kawthar Maxamed Cabdullaahi anigoo Cabditax Ibraahim Cagaarna la socodsiinaya. balse marka hore barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Axmed Maxamed Ibraahim Axmed Nagaashi. mahadsanid Cabdifatax. dagaallo qadhaadh ayaa ka socda magaalada koonfurta Afghanistan ku taala ee Lashkargah halkaas oo mitidiinta Taliban ay kolba ku soo rogaal celinayaan oo ay isku dayayaan inay dib ugu qabsadaan magaaladaasi xarunta waa gobolka Helmand. wararka halkaa ka imanaya ayaa tibaaxaya in diyaarada lagu duqeeyay fadhiisimada Talibanku waxay sheegeen inay galeen meelo ka mid ah Lashkargah oo ka mid ah xarumaha 3 gobol ee ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan. boqolaal askar oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ayaa gaadhay magaalada Herat ee gobolkaasi halkaasi si oo ay doonayaan inay dib u riixaan fallaagadaas. dhammaan hawlihii duulimaadyada Kandahar ee koonfurta dalka ayaa la joojiyey kadib markii mitidiintu ay 2 gantaal ku dhufteen dhabaha diyaaradahu ka duulaan ee madaarka magaaladaas. afayeenka ciidamada Afghanistan Ajmal Umar Shinwari ayaa sheegay in militarigu aanu faraha ka qaadaynin 3 magaalo ee dagaalku ka socdo. ولی پلان ډول دا تاسو ته پروخانه ډول باندې ویلای شم چې د افغانستان ciidamada ammaanka ee Afghanistan ee ku sugan 3daas gobol ee Herat, Helmand iyo Kandahar ee xaaladda degdega ah ku jira waxa ay diyaar u yihiin inay dagaalamaan. waxay leeyihiin awood ay ku difaacaan goboladaas. xaaladana gacanta ayaa lagu hayaa kadib markii taliyayaasha sarsare ee ciidamadu ay isku dubarid habboon sameeyeen. منظم پلان بنسټ باندې مدیریت شوی دی. Mexico ayaa qabanaysa afti shacabka lagu weydiinayo in madaxweynihii hore lagu bilaabo baadhitaan la xidhiidha dembiyada la sheegay inay dhaceen intii uu xilka hayay. aftidaas waxaa soo jeediyey madaxweynaha haatan talada haya Andres Manuel Lopez waxaana qayb ka tahay dadaalka la doonayo in lagula xisaabtamo kuwii isaga xilka uga horeeyay. laakiin dadka arrintan dhaliilaya ayaa ku tilmaamay inay tahay masraxiyad shacabka lagu soo jiidanayo waxaanay sheegeen inaanu jirinba haatan sharci diidaya in hogaamiyaashii hore lagu soo ogo dembiye lagu eedaynayo. waxaa sidoo kale aad loo dhaleeceeyey qaabka kakan ee loo qoray ereyada lagu dhigayo warqadda codbixinta waxaana jira saadaal ah in dadka u soo bixi doona aftidani aanay gaadhi dooninba 40% ee aftidaasi ku sharciyoobi karto. dabka holcaya kaymaha oo uga sii dareen heerkulka sarreeya iyo dabaylo xoog leh ayaa ka hulaaqaya qaybo ka mid ah dalalka Greega, Turkiga iyo Lubnaan waxaana qasab noqotay in kumanaan qof la daadgureeyo. dad Turkiga iyo dalxiisayaal badan ayaa laga guraya xeebaha koonfureed ee dalkaas. 6 qof ayaa ku dhintay dabkan oo bilaabmay Arbacadii oo ahaa dhacdadii ugu xumeed ee soo marta Turkiga muddo 10 sano ah. Lubnaan qof ayaa ku dhintay dabkaasi oo wali holcaya. ku dhowaad 60 goobood oo ku yaala kaymaha galbeed ee Greek ayaa dabku ka huraya 24 saacadood ee u dambeeyay. 5 tuulo oo ku dhow magaalada Patras ayaa dadkii laga guray. khubarada ayaa iyaguna sidoo kale ka sii dardaar warinaya kororka iyo xaddiga dabka kaymaha ka kaca sababtuna tahay bay yiraahdeen isbeddelka cimilada dunida. wararka ka imanaya Tokyo ayaa sheegaya in saraakiil ka socota dalka Belarus ay isku dayeen inay qasab dalkeedii loogu celiyo gabadh ciyaartoy oo dhalishay maamulka dalkaas. Kristina Timonskaya oo horadyahan ayaa haatan la aaminsan yahay inay gacanta ku hayaan booliska iyo dad mutadawiciin oo ay ku sugan tahay madaarka magaalada. hase yeeshee ay u sheegtay booliska inay ka cabsi qabto in dalkeedii Belarus ay ku noqoto. waxaa la sheegay inay doonayso inay magangeliyo ka hesho dalka Austria.
ugu dambaynna booliska magaalo madaxda jarmalka ee berliin ayaa isku dhaceen mudaharaadayaal diidan amar maxkamadeed oo isku soo baxooda ku tilmaantay sharci darro. booliska oo adeegsanaya budhadhiyo sunta dadka ka ilmaysiisa ayaa sheegay in dadku askarta gacan ula tegeen oo dhowr qofna la xidhay. mudaharaadnadan waxaa ku baaqay urur muddaba diidanaa xayiraadaha ka hortagga fayraska corona. maxkamadda ayaa hore u mamnuucday dhowr mudaharaad oo ay qorsheeyeen kuna sababaysay in dadka isku soo baxaya aanay xidhan doonin afsaabka iyadoo ay markeeda horeba isa soo tarayso tirada dadka uu cudurku ku dhacaya. warkii galabnimona waa nagaytaa dhegeystayaal. aad baad u mahadsan tahay axmed maxamed ibraahim axmed nagaash ayuu kaasi ahaa wararka caalamka ayuu inala socodsiinaya halkaad kula socoteenna waa b b c dhegeystayaal u diyaargarooba qaybaha kale ee barnaamijka. aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday ee somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu shaaciyey in maalinta talaadada ah ee soo aadan uu qabsoomi doono kulanka ugu horreeya xildhibaanada golaha wakiilada ee dhowaantan lasoo doortay. isugu yeeridda golaha wakiilada somalilan waxaa imanaysaa kadib go-aankii maxkamadda sare ee somalilan ay 7 bishii tagtay ee julaay ku ansixisay natiijada doorashada golaha wakiilada ee la qabtay 31 bishii May ee sanadkan. kulanka haddaba talaadada soo socota dhici doona ayaa waxaa lagu dhaarin doonaa xildhibaanada kadibna waxay iska dhex dooran doonaan shir guddoonkooda hogaamin doona 5 sannadood ee soo socota. faahfaahinta warkanna waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray waryahayaga ee magaaladaasi Cabdullaahi Jaamac. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray xeer madaxweyne oo uu ku mudaynayo maalinta ugu horeysa ee ay fadhiga yeelanayaan golaha wakiilada Somaliland ee cusubi. xeerkan oo goorweyd ka soo baxay xarunta madaxtooyada Somaliland ayaa madaxweynaha Somaliland waxa uu ku sheegay in fadhiga ugu horeeya ee golaha wakiilada ee cusubi uu qabsoomi doono maalinta Salaasada ah ee ku beegan 3 bisha 8 2021 9 subaxnimo. fadhigaasina waxa uu ka qabsoomayaa xarunta golaha wakiiladu ku leeyihiin magaalada Hargeysa. iyadoo oo muddooyinka bal laga dhowr sugayay madaxweynuhu soo saaro waraaqdaasi ayaa sida caadadu tahay ama sharciguba qabo waxa golahaasi marka uu madaxweynuhu isugu yeedho fadhigiisa gudoomin doona fadhiga ugu horeeya gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland ahna gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah waxaana 82 ka xildhibaan uu ku dhaarin doonaa isla xaruntaasi. kadib dhaarta ayaa golahu waxa iska dhex doortaa qofka ugu da'da weyn si uu u gudoomiyo shirka uu fadhiisto kursiga gudoominta waxaana uu halkaasi ku gudoomaa codsiyada musharaxiinta doonaya inay u tartamaan shir gudoonka golaha wakiilada iyadoo ugu dambeyntina ay golaha wakiiladu doortaan 3 qof ee kala ah gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad kuwaasi oo noqonaya shir gudoonka hogaaminaya golaha wakiilada ee ay iska dhex doorteen. gudoomiyaha ugu da'da weyn waxa uu xaq u leeyahay inuu isla maalintaasi la dhaariyo golaha uu doorashada xubnaha shir gudoonka qabto. waxa kale uu xaq u leeyahay inuu qiimeyntiisa kadib fadhi kale uu ku gudoomiyo in la doorto xubnaha shir gudoonka. intaan ka ognahay xubnaha cusub ee golaha wakiilada haatan waxa u sharaxan xubno ay soo kala sharaxeen xisbiga kulmiye iyo xisbiyada isbahaystay ee u cidiya wadani. waxaana la rajaynayaa in muddo ku dhow bil oo ay socotay xidxudasho iyo isjiidsiid dhinaca golaha wakiilada sidii gudoonka loo kala hanti lahaa ay soo afjamri doonto haddii ay baydmo maalinta Salaasada ah ee 3 bishan oo la ogaan doono cidda fadhiisan doonta kursiga gudoominta golaha wakiilada ee Somaliland ee labaad ee la soo doortay 31 bishii May 2021. Cabdullaahi Jaamac ayuu mahadsan yahay warbixintaas ayuu goorweyd ka soo diray magaalada Hargeysa. Facebook ay dhageystayaal badan ra'yigooda warbixinta kaga soo dhiibteen mid labaan soo qabtay Sayid Ismaan Cabdulle oo ka soo qoray magaalada Dhuusamareeb wuxuu leeyahay waan bogaadinayaa madaxweynaha Somaliland ee shaaciyay waqtiga uu qabsoomi doono kulanka ugu horeeya xildhibaanada golaha wakiilada ee dhawaantan la soo doortay. waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada cusub ee Somaliland in ay si daacad ah ugu adeegaan shacabkii soo doortay. Faarax Maxamed Caydiid oo Hargeysa ka soo qorayna wuxuu leeyahay madaxweynaha Somaliland ee shaaciyay waqtiga uu qabsoomi doono kulanka ugu horeeya ee xildhibaanada golaha wakiilada cusub waan soo dhaweynayaa waxaanan rajaynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjari doono hardanka loogu jiro shir gudoonka golahaasi oo noqday arrinta ugu hadalhaynta badan Somaliland. waxaan qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC Facebook dhegeystayaal warbixinada kale aanu dhawaanta halkaasi ku daabacnayna ra'yigiina waad ka soo dhiiban kartaan oo hadba cidda ay inoo suura gashay aan soo qaban doonaa balse markan
diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee waddanka maraykanka ayaa lagu soo warramayaa in saaka ay dagaalyahanada ururka al-shabaab ku duqeeyeen ee deegaanka qaycad ee gobolka mudug ee soomaaliya. duqaynta ayaa waxaa imanaysaa xilli dagaal culus oo halkaas ku dhex maraya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa al-shabaab. dagaalada dowladduna waxay sheegtay inay halkaas ka wado olole ay ku tilmaantay inay gobolka mudug uga sifaynayso ururka al-shabaab. dagaalka socday muddada toddobaadyada ah ayaa waxaa la sheegayaa in dad badan halkaasi ay ku dhinteen. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi iyo duqayntaba waxaan goorsii horreysay weydiiyey waryaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan. cabdifataaxow dadka deegaanka qaycad iyo aagga bacadweyn ku sugan oo b b c da la hadlay waxay sheegeen in ugu yaraantii 3 gantaal oo xoog leh inay maqleen iyadoo ay ku dhacayaan aaggaasi. waxay sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay duqayntaasi geysteen. dabadeed waxay sheegeen inay maqleen hob culus oo ay isku reedayaan ciidamada dowladda oo ay taageerayaan ciidanka maamulka galmudug iyo xogaga al-shabaab ee aagagaasi ku sugan. ilaa hadda lama oga khasaaraha duqaynta xagga cirka ah ee aagaga al-shabaab ay ku sugnaayeen ku dhacday maanta. waa duqayntii saddexaad oo tan iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey markii gulufka militari ay bilaabeen ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ee ka dhanka al-shabaab uu ka bilowday gobolka mudug. labadii duqayn ee hore waxaa geystay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada maraykanka. sida dadka deegaanku ay b b c da u sheegeen waxay filayaan in duqayntii maanta ilaa 3 gantaal ee aagaasi ku dhacday inay geysteen diyaaradaha Amerikaanka. cabdiyow ibraahimow ilaa hadda dhinacyadu ma ka hadleen dagaalada iyo duqaynta qaycad ka dhacday? warbaahinta dowladda oo soo xigeynaysa saraakiisha militariga Soomaaliya ee aagagaasi ku sugan waxay sheegtay in ciidamo badan oo ka tirsan al-shabaab in duqaynta xagga cirka ah iyo weerarkii xigayba lagu dilay, laakiin tiro rasmi ah ma aanay soo bandhigin. laakiin warbaahinta al-shabaab war ka duwan ayay sheegayeen, balse waxay xaqiijiyeen in duqayn xagga cirka ah lala beegsaday aagag ay ku sugnaayeen ciidamadooda. waxay sheegeen in markii duqayntu ay dhacday kadib ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay damceen in ay fooda geliyaan aagaga ay al-shabaab ku sugnaayeen, laakiin ay halkaasi ku jabiyeen ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug dibna ay u waabiyeen. dadka deegaanku aan la hadlo waxay sheegeen in xaaladdu hadda degan tahay, wax rasaas ah oo la maqlaya aagagaasina cabdifataax oo aanay jirin hadda. ibraahim maxamed aadan waryaha b b c da magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa. aad ayuuna u mahadsan yahay. wixii wararkaasi ka soo koran idaacadaha iyaga dambe ayaad ku maqli doontaan ama barteena internetka ee bbcsomali.com. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. markana wararka Soomaalidu aynu ku soo laaban doonaa ee sida aad warka caalamkaba ku maqlayseen dagaal culus ayaa waxa uu ka soconayaa magaalada Lashkargah ee koonfurta waddanka Afghanistan xilli dagaalyahanada Taliban ay sii wadaan weerar ka dhanka ah dowladda Afghanistan ee ay ku hayaan 3 magaalo madax oo dalkaas ku yaal. dagaal xooggan iyo duqeymo dhanka cirka ayaa halkaas ka dhacay tan iyo xalay iyadoo xogaga Talibanna ay ku jiraan gudaha magaalada. hase yeeshee ciidamada gaarka ee Afghanistan ayaa waxa u suura gashay inay Taliban dib uga riixaan bartamaha magaaladaasi. dhanka kalena maleeshiyaadka Taliban ayaa gantaallo waxay la dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kandahar, arrintaas oo horseeday in garoonkaasi la xiraba. faafahinta warkanna waxaa isku soo duuday oo nala socodsiinaysa Kawthar Maxamed Abdullahi. dagaalo xooggan ayaa xalay ka dhacay magaalada Lashkargah, waxaana la rumaysan yahay in duqeymaha xagga cirka ah ee Afghanistan iyo Maraykanka loo adeegsaday in lagu bartilmaameedsado kooxda Taliban. ciidamada dowladda ayaa sheegay in la dilay 10 qof oo ka tirsan mintidiinta Taliban, waxaana saaka ay isku dhacyadu ka bilaabmeen isla magaaladaasi Lashkargah. kooxda Taliban ayaa la wareegtay gacan ku haynta ku dhowaad guud ahaan dalka Afghanistan, balse ma aysan ku guuleysan inay la wareegaan magaalooyinka muhiimka ah. maalmihii la soo dhaafay waxa ay dagaalo ka socdeen magaalada Kandahar iyo magaalada Hiraat ee galbeedka dalkaasi. xaaladdaasi ayaa hadda degan kadib markii halkaasi la geeyey ciidamo dheeraad ah. Xuseen Xaqaani waa safiirkii hore ee Pakistan u fadhiyey Maraykanka. waxa uu sheegay in ciidamada Afghanistan ay u baahan yihiin diyaarado dagaal oo dheeraad ah si ay ugu adkaadaan kooxda Taliban. all through the 20 years that the Americans and the Brits and everybody else were there. inkasta oo 20kii sannadood ee Maraykanka iyo Ingiriiska iyo cid kasta oo kale ay halkaas joogeen, haddana dhammaantood ma aysan dhisin ciidan cirka ah oo Afghanistan ku filan. waxaana ciidanka cirka Afghanistan ka dhigeen gebi ahaanba kuwa ku tiirsan qandaraaslayaal hadda dalka isaga baxaya. Taliban waxa ay sidoo kale dileen duuliyayaashii Afghanistan
iyagoo hawsha ku jira si farsamaysan si ay u hubiyaan inaysan jirin awood dhinaca cirka ah oo dhinaca dowladda ah. marka haddii la doonayo in taalibaan aysan xoog ku qaadan afghanistan waa inay ka tanaasulaan waxa loogu yeero geedi socodka nabadda oo ay isu taagaan sidii ay u taageeri lahaayeen militariga afghanistan. They have to abandon the so-called peace process and actually get round to supporting the Afghan military. waxaa maanta la joojiyey duulimaadyadii gegida diyaaradaha ee magaalada Kandahar kadib markii kooxda Taliban ay subaxnimadii hore ee saaka ay gantaalo ku garaaceen garoonkaasi kuwaas oo burbur gaarsiiyey dhabaha ay ku ordaan diyaaradaha. xildhibaan laga soo doortay magaaladaasi Kandahar ayaa BBC-da u sheegay in sabtidii ay magaaladaasi halis ugu jirtay inay u gacan gasho Taliban waxaana durba magaaladaasi ka barakacay 10,000 oo qof iyadoo hadda laga cabsi qabo musiibo bini'aadanimo. ciidamada gaarka ah ee Afghanistan ayaa loo daadgureeyay magaalada Herat oo ah magaalo dhaqaale ahaan muhiim ah. duqeymo xagga cirka ah ayaa sidoo kale lala beegsaday maleeshiyaadka Taliban oo ku sugnaa meel ka baxsan magaalada. ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda gaashaanbuurta NATO ayaa xukuumadda Afghanistan xukunka ka tuuray bishii November ee sanadkii 2001. bishii labaad ee sanadkii tagay ee 2020 ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump sheegay in ciidamada Mareykanka laga soo saari doono dalka Afghanistan. sanadkan 2021 madaxweyne Joe Biden ayaa isna shaaciyay in ciidamada Mareykanka ay dalkaasi ka soo bixi doonaan bisha 9aad ee sanadkan. aad u mahadsan tahay Kawtar Maxamed Cabdullaahi taasi ahayd warbixintaasi nala socodsiinaysa markana bal wararka Soomaalida aynu ku laabanay magaalada Baydhabo waxaa maanta ka socota diiwaangelinta 10 musharax oo u tartami doona 5 kursi oo kamid ah 8 kursi ee xildhibaanada golaha aqalka sare uu ku leeyahay maamulka Koonfur Galbeed ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo doorashadoodu dhowr jeer hore dib u dhacday. diiwaangelinta kadib waxaa la filayaa in xubnaha buuxiye shuruudaha guddiga doorashooyinka ay bari ku tartamaan codka golaha wakiilada Koonfur Galbeed oo u codeyn doona musharaxiinta 5 ee tartamaysa. doorashadana waxa ay imanaysaa baa leeyahay xilli Koonfur Galbeed ay haweenka 2 kursi oo gaar ah ay u qoondaysay oo u xirtay. dhinaca kalena madaxweynaha Galmudug ayaa waxaa loogu baaqay inuu soo gudbiyo liiska musharaxiinta aqalka sare ee deegaanada maamulkiisa. faafahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Ibraahim Maxamed Aadan. 10 xubnood 4 ka mid ay yihiin gabdho ayaa bilaabay inay iska diiwaan geliyaan guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed iyadoo ay goobjoog ka yihiin xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal. 10 murashax waxaa shalay wareegta ku soo saaray madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. 5 kursi ee loo tartamaya 2 ka mid ah ayaa loo xiray dumarka oo kaliya waxaana ku tartamaya 4 hablood oo la kala yiraahdo Samsam Ibraahin Cali iyo Shariifa Xaaji Cismaan Ibraahin oo hal kursi ku loolamaya iyo ayaan aadan Cabdilaahi iyo Farxiye Nuur Aadan oo iyana ku tartami doona kursi kale. 5 kursi ee loo tartamaya ayaa qayb ka ah 8 kursi ee Koonfur Galbeed ku leedahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka. shuruudaha diiwaangelinta waxaa ka mid ah in murashax kasta oo rag ah uu koontada baanka guddigu leeyahay ku shuba lacagna $20,000 tiyo dumarka isi soo sharaxayna laga rabo $10,000 lacagtaas oo aan loo celin doonin xitaa haddii tartanka looga adkaado. waxaa kaloo shuruudaha diiwaangelinta ka mid ah in murashax kasta soo gudbiya gal ay ku cad yihiin inuu yahay muwaadin Soomaali ah oo da'diisu aanay ka yarayn 25 sano leeyahayna ugu yaraan waxbarasho dugsi sare ama waaya-aragnimo u dhiganta inuu soo gudbiyo warqadda dambi la'aanta ee hay'adda dambi baarista booliska iyo inuusan ka tirsanayn kooxaha loogu yeero argagixisada. xubnaha shuruudahaasi buuxiya iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin in qofka dhimirkiisu taam yahay ee ka midka 10 xubnood ee uu soo gudbiyey Laftagareen ayaa berrito baarlamaanka Koonfur Galbeed u kala codayn doona. maamulada kale ee Puntland, Galmudug, Hirshabelle iyo guddiga maamulaya kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi ee Somaliland ayaan ilaa hadda soo gudbin liiska murashaxiinta u tartami doonta aqalka sare ee deegaanadooda. ilaa hadda Jubbaland iyo Koonfur Galbeed baarlamaanadooda oo kaliya ayaa bilaabay qorshaha hirgelinta doorashada sanatarada aqalka sare. khamiistii ay ahayd markii 4 sanatar ay ka soo baxeen doorasho loo qabtay 9 murashax oo soo gudbiyay madaxweyne Axmed Madoobe kuwaas ay u codeeyeen golaha wakiilada ee Jubbaland. dhinaca kale guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Galmudug ayaa warqad ugu diray madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uga codsaday inuu soo gudbiyo liiska murashaxiinta sanatarada aqalka sare ee ka soo galaya Galmudug. Ibraahim Maxamed Aadan, BBC, Muqdisho. ibraahim waa mahadsan yahay markana bal Facebook aan si qaar ka mid dhageystayaasha ra'yigooda warbixinta kaga soo dhiibtay jaamac maxamed xirsi oo degmada gaashaamo ka soo qoray wuxuu leeyahay maamulka Koonfur Galbeed
ee bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta u matali doona aqalka sare run ahaantii waan bogaadinayaa waxaana muuqata buu yidhi in maamulkaasi uu xil iska saaray qoondada haweenka maamulada kalena waxaa looga baahan yahay inay sidaas oo kale sameeyaan hase yeeshee falastiin khaliif biifey oo magaalada muqdisho ka soo qortay waxay leedahay magaalada baydhabo haweenka loo xiray labada kursi oo gaarka waxaan u arkaa tallaabo aan ku habboonayn waayo mas-uuliyadoodii guriga ayay dayacayaan haddii siyaasadda ay sidaa ugu dhex milmaan waxaan qaar ka mid dhegeystayaasha b b c ee facebook waa tahay markanna wararkii ciyaaraha ayaa inoo soo socdaa balse markan tartan qur-aanka kariimka ah oo inta badan ay kasoo qayb galaan caruur ku dhalatay waqooyiga america ayaa sanadkiiba toddobaad waxaa lagu qabtaa gobolka minnesota halkaas oo ay ku nool yihiin soomaali badan xilligan oo kale oo ku beegan fasaxa iskuullada ayaa waxaa laisugu keenaa arday badan oo ka qaybgalaysa tartankaasi oo ka kala yimaada gobolada maraykanka iyo canada iyagoo ciddii halkaasi ku guulaysatana abaalmarino qaali la siiyo haddaba tartankaasi sanadkan waxa uu ka bilaabmay minnesota shalay waxaana halkaas warbixintan kasoo diray siyaad siciid saalax tartankan oo ah mid sanadla ah ayaa akiisii toddobaad sanadkan waxaana ku tartamaya 380 arday oo badi ku dhashay waqooyiga amerika wuxuu socon doonaa muddo 8 cisho ah maalinta xigtana waxaa lagu dhawaaqayaa natiijada cidda guulaysatay waxaa mudnaan leh in labada arday ee tartankan ugu horeysa 30 jus oo gabdho iyo wiilal u kala tartamaya inuu mid walba uu heli doono baabuur lagu qiimeeyey $42,000 waxaana dheeri ku ah in ardayda kale ee kaalimaha hore gala inay heli doonaan lacaga u dhaxeeya $10,000 ilaa $2,000 maxamed amiin xasan waxa uu ka mid yahay ardayda tartankan ka qaybgalaysa sanadkan waxa aanan weydiiyey waxa uu rajaynayo alxamdulilah waxaa rajaynayaa inta kalama fiican ka helo oo tartankan soo diyaar garoobay intuu ilaahay u waafajiyo insha allah ilaa xilli intee la eg ayaa diyaar garoob ku jirtay sanad camal oo diyaarinayay alxamdulilah maxaad ka qaybgalaysaa tartanku waa noocyo badan yahay lambarkee ka qaybgalaysaa 30 jus oo qur-aanka dhan ku tartamaya insha allah maxaad rajaynaysaa inaad kala tagto meeshan inta kaalinka koowaad inta qaataa rabaa insha allah biidn illah oo baabuurka meesha yaala ka haysatay insha allah taasaan rajaynayna insha allah weli ma ku riyootay adigoo tartankan oo kale ama guul ka keenay waxaa lagu fikirayo oo dad badan u dagaaltamaan oo u diyaar garoobaan waa intii kaalin fiican helaan alxamdulilah insha allah waqtigaasna intuu yimaado ilaahay ka barina insha allah doctor sidow cabdi shariif waxa uu ka mid yahay guddiga qabanqaabada waxaanan weydiiyey inuu iiga waramo qabanqaabada guud ee tartankan bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaa ilaahay mahadiisa ah in aan hadda qabanqaabadeed ku jirno maanta ay furitaankii tahay sanadkii toddobaad waxaad moodaysaa subxaana allah yacni in arrin lala yaabo oo mucjizo ay tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa inta wixii ilaahay wato waa uun iska soconayaan marka waa musaabaqa oo ah non profit organization oo loogu talagalay ilmahan ku dhashay waddankan america oo muslimiinta ah soomaali kaliya maahan waxaa ka qayb gala yacni musaabaqada canada laga imaadaa muslimiintoo dhanay u furan tahay waxay soomaali kaliya u xiran tahay maahan marka waxaa waay si ardadaas ku nool meeshan iyo challenge-ga jiro oo waxyaalaha caqabooyinka jiro dhan in ay ardadaas qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku dadaalaan shariif kharashka faraha badan ee ku baxa tartankan xagee buu ka yimaadaa wax ku tara oo musaabaqada kaalmeeya dadka ganacsatada Soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaala ganacsigooda Allah u hagaajiyo ayaga bixiya badana wali waxay u baahan tahay kaalmay u baahan tahay maxay uga dhigan tahay tartankan ardayda muslimiinta ah ee ku dhalatay Mareykanka aqi siyaad waxay uga dhigan tahay ilmaha halkan ku dhashay wadankan oo wadan islaaman ahayn wadankan waa dadku ku nool western ku yaqaana macnaha waa mucjiso ardadii lagu bilaabay musaabaqadan imaam shaatibi in ay international ay soo qaadeen axmed burhama kamida cabdikhaliqa kamida yani kuwaas waa tusaale kaliya oo macnaha waxaad arkaysaa say maalin kasta u badanayaan maalin kasta waxa lagu soo markii hore waxa lagu bilaabay wax ka yar 40 maantana 400 bay marayaan waxa ku jira maalin kasta waxa lagu soo diraa wax cusub hadda waxa ku jira qiraa'aadka waxa ku jira 20 juz gabdhihii wiilasha taa waa la kala saarsaa daraadeed ardada runtii aad bay u jecel yihiin aad bayna uga faa'iidaystaan annaguna wixii tabarteena aan kama haqran sanadkii hore waxaa la bixiyey baabuur sanadkana waxaa dabadda yaala 2 baabuur
marka ardayda iyo waalidiinta say u bedeshay arrintan subxaan allah yani waa wax waad arkaysaan hadda musaabaqooyinka masalan kuwait iyo abudabi dowladaha maamula meeshan ilaahay subxaana wa tacaala baa maamula baabuurtaas waxaa bixiya dad ganacsato oo Soomaaliyeed oo muslimiina raba inay quraanka ilaahay kaga qayb qaataan sida aqoonay suufi oo kale haddana sanadkan hatta gabdhii si macnaha ay u sinaadaan wiilashii gabdhii waxa loo kala qaaday juska soddonka jus in ay gabdhahana gooni u tartamaan wiilashana gooni u tartamaan gabadha halka ka soo baxdana baabuur ay hesho wiilka halkan ka soo baxana baabuur oo helo codkaasina wuxuu u dambeeyey warbixintii siyaad siciid saalax oo maraykanka ka soo diray markana ciyaarihii intaanan u gudagelin iyo barnaamijkii mawjadaha baraaruga dalxiisayaal ayaa waxaa laga daadgureeyey xeebaha koonfur galbeed ee wadanka turkiga halkaas oo uu farabaan ku hayo dab ka kacay kaymaha oo haatan halis ku haya hoteelada iyo guryaha sida ay warbaahinta maxalliga ku warramaysana maraakiibta ciidamada ilaalada badda ee turkiga oo gacan ka helaya dooniye iyo maraakiib yaryar oo gaar loo leeyahay ayaa waxaa la geeyey goobta si ay si badqaba ugu soo samata bixiyaan dalxiisayaasha faahfaahinta warkana waxaa inoo haya mucaawiye maxamed buraale magaalada bodram waxaa lagu soo warramayaa in la daadguriyey dad ku sugnaa hoteello casri ah oo ku yaalla halkaasi dabkan oo holacayay tan iyo arbacadii waxaa ku dhintay 6 qof kubanaan qof ayuu saameeyey dabkan ka kacay ilaa goobo dhowr ah oo isugu jira hoteello iyo tuulooyin ku yaalla badda mediteraneanka ee turkiga iyo xeebaha aegean halkaasoo ka mid ah goobaha loo dalxiis tago saraakiisha waxay sheegeen in la damiyey dabka ka kacay goobaha qaar warbaahinta gudaha ayaa baahisay muuqaallo muujinaya dadka oo ka cararaya goobta xilli dabka uu ku sisiqayey magaalo dhacda dhulka buuraleyda ee keymaha leh lama ogo wakhtiga muuqaalkaasi lasoo duubay baarayaasha waxay isku dayayaan inay ogaadaan sababta ka dambaysay dabka xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in qof ka dambeeyey dabka la xiray madaxweyne Rajab Erdogan wuxuu sabtidii booqday magaalada Manavgat halkaasoo la xaqiijiyay inay ku dhinteen 5 qof oo dhimashadooda la xiriiray dabka Erdogan wuxuu wacad ku maray in xukuumaddiisa ay qaadi doonto tallaabo kasta oo lagu caawinayo boqolaal shacab ah oo saameeyay dabka madaxweynaha waxaa si weyn lagu dhaleeceeyay in dalkiisa ay haysato gabaabsi dhanka diyaaradaha si loo damiyo dabka mucaawiye maxamed buraale aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi ayuu nala socodsiinayay dhegaysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com markana ciyaarihii aan eegna ee daaficii hore ee xulka kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska Gary Cahill ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu isaga tagay kooxda Crystal Palace kadib markii uu halkaasi ka dhacay qandaraaskii kooxdaasi kula joogay ciyaaryahan Cahill oo Chelsea u dheeli jiray ayaa waxa uu 2 sanadood oo qandaraas ah u saxiixay kooxdaasi Crystal Palace sanadku markuu ahaa 2019 waliba bishii Agoosto markaas oo kooxda Chelsea ay ciyaaryahankaasi soo fasaxeen haatan seebaraha bulshada ay ku wada xiriirayeen Cahill waxa uu soo dhigay in uu isaga tagay kooxdaasi Crystal Palace ciyaaraha kalena dhanka iyo Olombikada adduunka kubadda cagta markaan fiirino waxaa soo baxay oo nus dhamaadka tartanka Olombikada adduunka soo gaaray xulalka wadamada Brazil, Japan, Mexico iyo Spain. Brazil waxa ay doonaysaa inay mar kale ku guulaysato tartankan Olombikada oo waliba ciyaarahaas ay ku guulaystay markii la qabtay 2016 waxa ay hal iyo eber kaga badiyeen xulka wadanka Tokyo goolka kaliya ciyaarta waxay dhaliyeen qaybtii hore iyagoo waliba sidaas ku soo gaaray semifinalka ama nus dhamaadka tartankaasi waxayna ka hortagi doonaan xulka wadanka Mexico maalinta Talaadada soo aadan ciyaaraha kalena Japan ayaa waxay la ciyaari doontaa xulka wadanka Spain Japan oo tartankan martigelinaysa waxay 4-2 kaga adkaatay waliba gool kulaada xulka wadanka New Zealand kadib markii ciyaartoodii 90 daqiiqadood ku soo dhamaatay eber iyo eber Spain waxa ay qarka u saarneedba in tartanka laga reebo laakiin markii dambe waqti dheeraad lagu daray ciyaartii ay dhexmartay iyaga iyo Ivory Coast ayaa 5-2 ay ku soo baxeen sidaasna Japan iyo Spain ayaa ku dheereeyay doona markanse barnaamijkii mawjadaha baraaruga bulshooy ganacsiga xortii ragoo kuluma xidhne haweenkana wou xaalaan kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka mawjadaha baraaruga qodobada aad toddobaadkan ku maqli doontaan waxa ka mid ah arrinta ah inaan loo samayn xarumo u gaar ah waa sax
oo dhaqaalaheena waa yar guud ahaan bulshadii baaba qaar badan meelo ay ka qaataan aysan jirin oo magaalooyin aysan gaarin iyo tuulooyin iyo degmooyin aysan gaarin. waa Dr. Maxamed Axmed Dr. Asbima oo barnaamijkeena nagala qayb gali doona oo kaga hadlayno haweenka ganacsatada ah ee naafada ahi ma u fududahay inay qaataan tallaalka COVID-19. isiray dumarka naafada ahi way ku dhiban yihiin qaadashada tallaalka aniga saakatay qabsatay ilaahunba u xisaabsan tahay salaamaad haye sidee walaal wuxuu dhaceen waa macdayskii taliya tacab iyo jilayaashii oo maadays cusub inoo la diyaara waxa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay COVID-19 iyo dhulka Soomaalidu ka degto geeska Afrika qaybgalkii barnaamijka ee dhageystayaasha ayaana barnaamijka qayb ka ah wadajir barnaamijka waxa idinku soo jeedinaya anigoo Safiya Cali Yuusuf iyo Cabdilaahi Jaamac وهجاك عبد الله يو هدي أن بلونا برنامج كتطبعات كان سيدا أن تلماني وحاين كسو قادي دونا هوينك جنع ستدا إن فدا ما أوفضو ده إن قاتان تلالك كوفر سجالية طبعا بس مرك هوري أنكو بلونه وركي وجودن بيه كورونا فيروس يدلك جيس كأفريقيا عبد الله جامع أي إنه دول مريضونا محسن الصفية وسيرده هرمونتها عفماتك jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday Somaliland ayaa waxay sheegtay in toddobaadkan laga baaray COVID-19 dad gaaraya 1659 qof waxa cudurka lagu xaqiijiyay oo laga helay dad gaaraya 9 qof oo ku kala nool gobolada Somaliland una badan gobolka Murudijeex sidaasi waxa BBC Media Action u xaqiijiyay madaxa xaaladaha degdegga ah ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cumar wuxuu taasi ku daray saddexdii cisho ee u dambeeyay ay baareen dad gaaraya 574 qof kuwaasi oo aan cudurka COVID-19 midna lagu xaqiijin hase ahaatee waxay wasaaradda caafimaadka Somaliland ka digaysaa in cudurka COVID-19 uu weli dalka joogo iyadoo laga baqa qabo in faraca cusub ee Delta oo soo gaaray wadamada jaarka ah sida Ethiopia Kenya uu Somaliland ku soo fidi karo sandraadeed waxay ku baaqeen in dadku feejignaan xoog la galaan dhinaca kale waddanka Kenya wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi waxay soo saartay in talaalka dadka qaatay ay gaarayaan laga soo bilaabo markii talaalkaasi laga bilaabay waddanka Kenya ilaa iyo 30kii July 1,723,727 qof halka dadka qaatay wajiga hore ee talaalka COVID-19 ay dhan yihiin 1,062,413 qof dadka qaatay wajiga labaad waxa ay dhan yihiin 661,314 qof dhinaca kale waxaa muuqata in dalka Kenya uu jiro kor u kac cudurka COVID-19 iyadoo faraca cusub ee Delta uu dalkaasi aad ugu baahayo sandraadeed waxa ay dawladda Kenya joojisay dhammaan isu imaatinada nooca ay doonaanba ha ahaataane waxa kaloo shaqaalaha laga codsaday in ay guryaha joogaan oo ka soo shaqeeyaan dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in 48 saacadood ee la soo dhaafay cudurka COVID-19 laga baaray dad gaaraya 1638 qof iyadoo cudurkaasi lagu xaqiijiyay inay qabaan 45 qof dadkaasi waxay ku kala nool yihiin gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ku taalo iyo Puntland mahadsanid cabdilaahi iyada oo shantii bilood ee u dambeeyay guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee dhulka Soomaalida laga helay talaalkii COVID-19 oo loogu talagalay in bulshada guud gaar ahaan inta uu si nugul laga talaalo cudurkan halista badan ayaa waxa mudan in la isweydiiyo haweenka ganacsatada ah ee lahaadkoodu kala dhiman yahay ee ka shaqeysta ganacsiyada kuna sugan suuqyada ciriiriga badan ee dhulka Soomaalida ma u fududahay inay qayb ka noqdaan dadkaasi talaalka helaya barnaamijka ayaynu ku soo bandhigaynaa aragtida haweenkaasi qaarkood ugu horreyn waa tan Caasha Maxamed Xuseen oo lahaadkeeda lagu kala dhiman yahay oo meherad bacadla ku haysata mid kamid ah suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa oo ay kula kulantay goobteeda ganacsiga wariye Muna Dhakhtar waxaanay ka hadlaysaa sida ay u aragto inay u fududahay iyada iyo haweenka la midka ah helista talaalka COVID-19 alxamdulillah ilaahay baa mahad aad bay noogu fududahay dadkeenu markaanu anagoo lahaad leh u tagno ee aanu ku gaaray lagu riixayo iyo ku taxi lagu qaadaba goobta nala geeyay ee tagno aad iyo aad bay dadkeenu noo tixgeliyaan kayuu ma gallo wuu noo fudud yahay si wanaagsanna waa naloo talaalaa sida dadka loo talaalayo caadiga ah
ayaa naloo tallaalaa laakiin wax kayuuyaa ma galaan dadka maxaan ku dhihi laxaadkoodu kala dhiman yihiin dee waabaanu kala dhantaalanay kayuu baanu geli karnaa markii horena waan istallaalay mar labaadkana waan istallaalay maalintii hore kaadh baa lay siiyey ee tallaalku kow ahaa een idaacadahaba dee ka dhegaystay bbcdan ka dhegaystay tvyadan ka dhegaystay dee lama aamusayna oo tayladhaan badan la diray goobtii caafimaad baan tegey ee iigu dhoweyd kaadh baa lay siiyey magacaygoo saddexan ku qoran yahay da-daydu ku qoran tahay waa lay tallaalay kaas 2 bilood bay ahayd mar labaadkii baan ku noqday kaadhkaygaanoo sita kaadhkaygii baa la eegay waa lay tallaalay mar labaadkiina alxamdulilah wax dhiba iyo wax dhibaato atono kumaan arag dadku way cabanayeen waa laga salsaliyey waxaa la dhahaa dhiigga xinjirow buu ku ridayaa dad baa dhimanaya baana la yidhi de anigu waxaan qabaa maalinta laysoo doono uun inaan dhimanayo maalin kalena irbadna aanan ku dhimanayn xanuun kaloo alla ii keenana aanan ku dhimanayne taydu maalintay dhammaato unaan dhimanayo haddaan caasho ahaanahay maasha allah shaqaalaha dhakhtarku aad buu mahadsan yahay dhakhtarka weyni maxaan ku dhahay dad badan baanu haynoo naafa ah markii aan saa tagsigii la iiga dejiyey 2 inan baa iga dejiyey 2 hablood baa haddana garba ay qabtay waa lay garbagelay kursi bay igu fadhiisiyeen markiiba way tallaaleen alxamdulilah ilaahay baa mahadlay markii dadkiina way dhaafiyeen kayuugu wuu badnaa dad badan baa taagnaa laakiin anagu wax kayuuya iyo wax maxaan ku leeyahay riix toona maanaan arag intayadii naafada ahayd ee meesha joogtay naafadana aad iyo aad baa loo tixgeliyaa waxaad heshay in dadku adiga ku tixgeliyaan adiga iyo qaar badan oo dhowr qofood haydeen oo tegay iyadoo kuyuu lagu jiro haddana laydin tixgeliyood gasheen tallaalkii ma jiraan dad idinka mid ah oo kuyuugaa galay oo meelo kale ka qaatay tallaalka dee waxaa jirta hooye mar dee faraheenana ma sinaa dad waxaa jira dee aan naxdintaba aqoonin oo de qofkan inuu isagu hadduu laxaad qabo inuu kani laxaad laayay aan ogeynba markaa dee way dhici kartaa in maxaan ku leeyahay dadka qaar dee ay tagaan goobo aan la tixgelinaynin way dhici kartaa dee waanay dhacdaa mararka qaar laakiin aniga weli igumay dhicin maan arag aad iyo aad ba wallaahi laii soo dhaweeyey aad iyo aad baa laii tixgeliyey aniga intii lamida ilaa 6 qof waanu ahayn qaar aragga ka naafa ahaa qaar lugaha ka naafa ahaa oo gaari quryaan lagu waday aniga iyo gabadh kale waxna lagu siday gaari maanaan arag hooyo maanaan arag wax lagu tacadiyaya maanaan arag dee laakiin dad ila mid ay ku dhacday way jirtaayo dee kayuyada iyo cadceedaa istaagaya dadkana waxaan leeyahay oon dadweynaha leeyahay dadka naafada ah waa walaalihiin waa dadkiinnii shisheeye maaha dadka naafada ah rag iyo dumar ah la tixgeliyo caashe maxamed xuseen waa ay mahadsan tahay ximbilo xasan cabdi waa haweene ku nool magaalada garowe gaar ahaana kaamaka barakacayaasha ee halkaasi ku yaala mid ka mid a waxay ka hadlaysaa inaanu tallaalka helistiisu u fududayn haweenka laxaadkoodu kala dhiman yahay sababta ay sidaasi u tidhi waxay uga warrantay weriye xasan haykal oo magaalada garowe kula kulmay hadda ka hor hawaysatalaalayna kala maciyaalo iyayan haysata ama naafi kuma arkin hal wiil iyo gabar aan arkin cid ma og ama cid gaar ahaan noola socoto noola saacida ma arkin maxaad bahda caafimaadka ugu baaqaysaa maadaama dad naafaatiin waa u baahana caafimaad waa u baahana daryeel waa u baahana aad bay u mahadsan yihiin haweenkaasi laxaadkoodu kala dhiman yahay ee barnaamijka la hadlaya ka sheekeeyey aragtidooda ku aadan helista tallaalka covid-19 haatan barnaamijka waxaa ku soo biiray doctor maxamed axmed oo loo yaqaan doctor asbima oo ah xogayaha guud ee ururka dhakhaatiirta puntland xubinna ka ah guddiga la dagaalanka iyo xakamaynta covid-19 ee puntland isagoo uu jooga garowe ayuu barnaamijka ka qayb gelaya doctore adiga oo mahadsan ka bax caafimaad ahaan haweenka laxaadkoodu kala dhiman yahay oo ka mid ah bulshada uu xilku idinka saaran yahay ilaalinta caafimaadkooda ma isleedahay helidda tallaalka covid-19 isaga oo iskaba yar inta dhulka soomaalida haatan soo gaadhay iyaga waa haweenkaasi ganacsatada ah ee weliba naafada ah si fudud kuma helayaan tallaalkaasi dadka naafada ah runtii waxay ka mid yihiin bulshada caadiga ee Soomaaliyeed ee lagu talagalay inay tallaalka qaataan ama dadka adimada naafada ka noqoto lugaha oo kale gacmaha dhagaha indhaha iyo xubnaha kale ee caadiga ah ee aan nolosha qofka saameyn gaar ah ku yeelan xagga shaqada jirkiisa marka arrintaas waa inay ogaadaan bulshadaas arrinta ah in aan loo sameyn xarumo u gaar ah waa sax oo dhaqaalaheena waa yar dadkii kale oo guud ahaan bulshadii baaba qaar badan meelaha ay ka qaataan aysan jirin oo magaalooyin aysan gaarin iyo tuulooyin iyo degmooyin aysan gaarin marka hadba waxa la sidaa u jabtaa loo dhutiyaa arrintaas waxaan qabaa inaysan ahayn arrin gaar maartay muxuu ahay iyo ku talagal ahayn ay tahay awoodda dhaqaale iyo tabarteed noloshana dhigtay saa darteed bulshadooda ka mid yihiin meel alla meeshay ka heli karaan oo ugu dhow inay ka qaataan baan kula talinayaa haddii awoodda iyo fursadda inoo saamaxdana waa habboonaan laheed waana u qareemaynaa in maarta loo sameeyo xarumo ay ka qaadan karaan arrinta ah tixgelinta bulshada ay tixgeliso waa sax bulshadana waa bulsho islaama isku xiran ehel wada ah isku dad ah saa darteed hal qoomiyad wada ah
waxa weeye dadka nugul inta badan waxa weeye in la hormariyo way mudan yihiin wayna u diyaarsan yihiin dadku waa laga yaabaa meelaha qaarkood inay kala kulmi karaan waxyaalaan habboonen laakiin dadku u diyaarsan yihiin marka weliba la xirfadle caafimaad waxa weeye dadka jilicsan inuu maaragtay waxa weeye u dhibriyo oo u adeego ayuu u diyaarsan yahay intaa kadib arrinta mas-uuliyadda waxa ugu horreeya mas-uuliyadda iska leh maamulada iyo dowladaha bulshooyinkaasi ku hoos nool yihiin mudnaan gaar iska siiyaan iyo tixgelin gaara muxuu ahaayey waa muhiim waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay culimmada dhakhaatiirta waxay ka saaran tahay ganacsatada si alla sidii bulshadaas loogu qareemi karo looguna heli karo adeegyadii xarumo u gaara oo ay ka heli karaan marka waa mas-uuliyad wadareed cidi walba ayaa rool ku leh ciidankii baa rool ku leh traafikada baa rool ku leh oo qofka naafada markuu waddada goynaya isagoo xarunta u socda inay gawaarida ka kala celiyaan yani waa mas-uuliyad cid kasta leedahay waxaana ugu weyn mas-uuliyadaas kale dowladaha iyo maamulada bulshooyinkaas ku dhex nool yihiin doctore aad baad umahadsan tahay maadaama aynu si gaara u eegayno haweenka gaar ahaan kuwa laxaadkoodu kala dhiman yahay ma kula tahay inaad caafimaadaha haddaad tihiin aad qorshaha ku darsataan aad baad umahadsan tahay cabdullaahi runtii bulshooyinka marka laga hadlayo waxa u nugul dumarka iyo carruurta caadiyan iyo dadka waayeelka ah marka la yidhaahdo iyo dadka bahaya gaarka qaba ama naafada ah sidaa darteed iyagii oo dumar ah oo haddana naafa ah runtii waa ka culays badan yihiin bulshadii kale weliba markii ay shaqaysanayaan oo imaanayaan goobihii layskugu imaanayay oo ay rabaan inay bulshadaas isku imaanaysa ay ka dhex faa'iidaystaan oo wax ka gadaan waayo xanuunkii dadkiibu la socdaa oo markasta oo isku imaatinku bato iyo meelaha bulshadu ku kulmaan wuu kaga badan yahay fiditaankiisu saa darteed waxa weeye inay maaragtay taxadar gaara ay sameeyaan oo agabkii badbaadada iyo maaragtay taxadarka isticmaalaan ka hortagga xanuunka sida gacmo dhaqashadii wax la midka ahaa iyo maaskiyadii tallaalkana in alla inta heli karaan maaragtay qaataan labada doos oo maaragtay waxa weeye meelay ka heli karaan waa muhiim runtii mas-uuliyad gaara way ka saaran tahay bahda caafimaadka waxaana moodaa wacyigelinadu waayadatan inaysan sidoo hore u socon oo sabab ay u tahay xanuunka waktigiisa u dheeraaday xanuunka oo wakti dheer in la joogay darteed ay muxuu ahaayey ay sabab u tahay dadku way daalayaan bulshooyinku waxa weeye xataa qaarkood waxaa dhici kara wacyigelinaha idaacadaha iyo teleefanada iyo meel kasta ka socda inaanay aad ugu sii dhug yeelan maadaama ay wakti dheer maqlayeen laakiin waxaan oran lahaa ha la dadaalo oo bulshada maaragtay caafimaadku runtii mas-uuliyad gaar inaad ka saartay mudan tahay dadkuna inay u dhignuglaadaan talooyinka caafimaadka iyo bahda caafimaadka aad buu mahadsan yahay dr asbima oo barnaamijka marti ku ah goordhow ayaan ku soo noqon doonaa haddii eebba idmo si uga jawaabo su'aalaha dhegaystayaashu ayna soo weydiiyeen markan aan wada dhegaysanno fariintan caafimaad salaamu calaykum halow kabtan saleebaan idheh nabaday covid-19 aan aragno farriin ka timid ruux wareersan waa faadumo oo reer hargaysaa waxay leedahay kabtan saleebaan salaamu calaykum sideen ku ogaan karaa in qof saaxiibkay runa yahay ama uu iska dhigayo faadumo iyo qof wal oo maqlaya hadalkayga way fududdahay taasi markaad aragto qofka kugu xiga u fiirso haddii qofkaasi kaa joojiyo inuu aad kuugu soo dhowaado marka waa saaxiibkaa run ah waxay ka fekerayaan badqabkaaga haa sababtoo ah arrintani waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee la isaga ilaalin karo coronavirus waa in ugu yaraan 1 mitir laga fogaadaa dadka kale markaa fayrasku uma gudbayo qof ilaa qof kale oo cudurka qaba ama aan qabin miyaanu saaxiibkaaga run ahi samayn doonin wax kasta oo loo baahan yahay si loo hubiyo inaad caafimaad qabtid oo aan lagaa helin dhibaatadan ka taxadir kuwa aad kuugu soo dhowaanaya xilliyadan xusuusnowna waxa kabtan salaabaan ku leeyahay halow rajo bye covid-19 fariintan caafimaad waxay kaaga timi BBC Media Action iyadoo qayb ka mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka Ingiriiska iyo Unilever. haddaynu dhegaystayaal intaasi ku dhaafno fariintaasi caafimaad faarax axmed waa wiil ku nool magaalada muqdisho waxa uu ka taageeray walaashii oo naafa ah oo ku ganacsato suuqyada magaalada muqdisho midkood inay hesho oo ay qaadato tallaalka covid-19 waa kan faarax oo sida uu walaashii uga caawiyey helista tallaalkaasi iyo hawshii uu ka mutay uga warramay weriye raxma xasan maxamed oo magaalada muqdisho kula kulantay gabar walaashay oo ganacsato ah oo baahiyaha gaar waa geeyey meelaha laga qaato tallaalka oo coronaviruska iyo cudurrada kale caadigaba guriga iyo goobta tallaalka laga qaatan aad ay u kala fog tahay mar walbana waxaan isku dayaa sida ugu fudud aan ku geey karo
aan ku sabood garay karo gabadha walaashay inaan geeyo ayadoo iga dheerta haddana meelaha laga qaato alxamdulilah waana geeyey meelaha maaragtay talaalka laga qaato mar kale la dhaho dadka baahiyaha gaarka qabo adduunka si waxaa loola macaamilaa maaragtay international meelo ee maraan ay leeyihiin service badanaa loo qabtaa laakiin in Soomaaliya ama Afrika ma lahan waana jeclaan lahay in la sameeyo meelaha saas oo kale marka la joogo magaaladeena ama Soomaaliya dadka baahiyaha gaarka qabo aad loogu dhibaa waan ku kala duwanahay maaragtay qof bilaadan maaragtay oo taam xubnihiisa iyo qof baahiyaha gaar qabo laba yihiin difference u dhaxay marka waxa la rabaa in la saboot gareeyo meelo badan loo furo Faarax Axmed waa uu mahadsan yahay haatan dhinaca diinta islaamka aynu eegno toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa sida ay diinteena suubanay uga hadashay in dadka bulshada maamulka u haya gutaan mas'uuliyadda ka saaran ummadda gaar ahaan dadka baahiyahoodu ka duwan yihiin dadka kale xil gaar ah iska saaraan sida haweenkan aan ka hadlayno ee laxaadkoodu kala dhiman yahay ee haddana nolosha qoysas badani ku tiirsan yihiin sheekha galabta ee barnaamijka waa sheekh Axmed Nuur Cabdi Jimcaale oo kamid ah culimada Muqdisho Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in mas'uuliyadda ugu weyn ee saaran tahay in dawada si cadaalad loo qaybiyo Abdullahi mas'uuliyadaas ugu weyn bacda Allah subhanahu wa ta'ala waxay saaran tahay madaxda waxa laga rabaa inay dadka ay xukumaan si cadaalad ay wax ugu qaybiyaan hadii kale ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala waa la weydiin doona nabigeenana waa ka sugnaatay calayhi salaatu wa salaam xadiis saxiix al-Bukhari ah oo rahmatullahi calayhi kullukum raac wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyati qof kasto in kamida waa ilaaliye wixii ilaahay uu dhiibana waa la weydiin doona qodobkan aan ka hadashay ee dadka naafada oo kale midalan la halmaamayo waa meesha ugu weyn ee dhibaatada ay naga haysato oo dad gurguuranaya jira oo rag iyo dumar ah oo aan waxba heli karin laga yaabo in sida xaqiiqadaaba aysan maalinka roodigeeda aysan heli karin ninka madaxdaana waxa laga yaabaa inuu cunada ugu macaan oo ku quraacanayo marka mas'uuliyadaasi markaan soo koobo ilaahayna ugu kaalmeeyo madaxda ay saaran tahay inay si cadaalad wax ugu qaybiyaan Sheekh Axmed Nuur Cabdi Jimcaale aad buu mahadsan yahay waxa uu joogay magaalada Muqdisho haatan dhakhtarkii barnaamijka dib aan ugu laabto waa Dr. Asbima si uga jawaabo su'aalaha dhageystayaasha dadka su'aalaha soo weydiinaya dhageystayaal waxa kamid ah Assalaamu calaykum magacaygu waa Cabdinaasir Sheekh Maxamuud Ciyaar oo ka soo hadlay magaalada Muqdisho hadii aan fikirkii ka dhigtay barnaamijka mawjadaha baraaruga ee BBC Media Action waxa weydiinaya khabiirka barnaamijka ee maanta sidee haweenka naafada ah ee u baahan inay qaataan talaalka coronavirus sidee loo aad buu mahadsan yahay walaal Cabdinaasir oo su'aashayga soo weydiiyay Muqdisho runtii dadka kan maadaama aysan mararka qaar waxda adag tahay inay xarumihii gaaraan ama socdaan ama ay tagaan oo ay dhici karto in adimadii ama lugu hinaafa ka yihiin waa muhiim in daryeel gaar ah la iska saaro cidda ugu horeysa oo ay tahay inay gargaar ama maartay u fidiso garab u fidisana waa cidda ugu dhow ama ehelka waxa weeye ama cidda maartay muxuu ahaye dariska waayo qofkii xarumihii meeliga ku diyaarsan yihiin talaaladii xarumihii caafimaadka MCH-yadii iyo wixii dhan bay ku diyaarsan yihiin maanta inta badan degmooyinka waa la gaarsiiyey muxuu ahaye guud ahaan dhulka Soomaalida saa darteed bulshada dariska la ah iyo dadka ehelka la nool haday noqon lahayd walaalihii ama maartay muxuu ahaye awlaadiisii hadii ama waalidkiisa cid alla cidda markaa ugu dhow ayay tahay mas'uuliyad gaar ah inay iska saarto sidii qofkaasi ku heli lahaa talaalkiisa shaqaalihii iyo talaaladii waxay ku diyaarsan yihiin xarumihii caafimaadka way habooneed in la gaarsiiyo oo loo sameeyo xarumo u gaar ah iyo maalmo u gaar ah laakiin tabardarrada dhaqaale iyo muxuu ahaye culayska maartay muxuu ahaye bulshadana haysta guud ahaan ayaan maartay muxuu ahaye suurto gelin waayay marka cidda ugu dhow waxay tahay bulshada ula nool yahay qofkaas iyo ehelka inay u suurto geliyaan habkii uu qofkaasi ku soo gaari lahaa muxuu ahaye meeshaas maanta wax badan dhulkeena waa la fududeeyay oo tagaasidii iyo waxyaalihii kale ayaa si fudud lagu heli karaya saa darteed waxa weeye way ka fududahay wax badan oo hore dhegeystayaasha barnaamijku aad bay u mahadsan yihiin ka qaybgalkoodii ayaynu dhegeysanay toddobaadka soo aadan su'aalo ayay soo weydiin doonaan martida barnaamijka haddii ee baydmo dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka mawjadaha baraaruga oo BBC Media Action soo diyaarisay laanta afka Soomaaliga idaacadda BBC-dana waad ka dhegeysanaysaan haatan waxaynu soo gaadhnay waqtigii aynu wada dhegeysan lahayn maadayskii talo iyo tacab waa kuwan jilayaashii oo maadays cusub inoola diyaara assalaamu calaykum walaal Faysah عليكم السلام ولا إيه ورن عبد والله الآن بانو في عنها إذا كل حال كنا كورما سول ما وذا وناكسنا الحمد لله آد بانو في عنها ما شاء الله إذا كل حال كنا أنا أقول آد بانو وذا وناكسنا والله نحن بنقضيه حتى ما نقول وين سو سلامي وين عبد يوقف بمشغول كيس أي عليسيو والله يسمعه تاسان بين هين
adigana imika shaqada meherada baa kuu taallo laftaadu haleel yeelin maysa waa runtaa cabdiyo guriga oo aan joogo ayaan ka mashquula waxaase dhib ma laha faa'isa shaqaa sharaf leh haahey nimaan shaqaysan shaah ma cabba hore loo yidhi waa siday tahayba haye imika iga warran meheradii xaalkeeda cabdeeda tiya imika meherada toddobaad keliya noo furan ayaa haddana maalin kasta lanaga dhammaysta kalluunka maasha allah waa war fiican haa runtii waxaad mooddaa kalluunka inay magaalada u jeel qabtay haa waan yaabayba waxaan la hadlay mar dhoweed ninkii kalluumaystaha ahaayo wuxuu ii sheegay in doon labaadoo kalluunka lagu soo dabo loo baahan yahay miskiin shaqadii baa ka badatay haa maalin kasta labada gelinba badda ayuu ku jiraa malaha shaqaale labaadoo gelinka dambe shaqeeya u baahan yahay haa waa macquul berri baan u tegayan xaalkiisa soo eegi bal u tagoo soo warayso si ay shaqaduna ugu fududaato haye waan soo eegi bal sida uu wax u rabo oo dhan waxaad adigu iiga warrantaa maxaa hawl inoo taalla maya dhankan wax badan loogama baahnaa haye kalluunka ka warran haddii lagu soo kordhiyo waan ka fakarayba walaal inkastoon ka baqayo inuu igu soo hadho maya taas ha ka welwelin meheradda kalluun baad ku soo wareejin doontaa wixii kugu soo hadha taas baan suuqu waayeyne waa si fiican idinka daaila hodheellada idinku xidhanay haa hodheellada magaaladu annagay naga qaataan bes waa si fiican ii soo kordhi qaboojiye dheeraadana waan u baahanahay waa run oo maryan baa ii sheegtay anna waan inoo dalbayba berri ayaa lagu keenayaa waa si fiican talow galabtu may naga soo gaarsiin karaan faysalow maxaa ku helay saaka hooyo waa durayoon oo duraygu kaama baxa miyaa saaka unbaan isku arkay hooyo iska warran adigu aad baan u wanaagsanahay waad soo kallahday saaka hooyo kallahaad maaha waa 8 subaxnimo mana anaa mooday faysalow hooyo tallaalkii karoonaha bal ka warran tallaalkii sow maaha waan ku aflaxay hooye waa si wanaagsan hadda baqdintii way ku diisay soo maaha halkaa dad badan baan ku arkay oo da'ah xataa qaar aniga iga waaweyn baa joogay waa arrin lagu farxo miyay qaateen gebigood tallaalka haa waannu wada qaadannay dhammaantayo go'aan wanaagsan bay ahayd inay tallaalka dhammaystirtaan haa hadda kama warwaraayo inuu cudurku igu dhaco ama aan faafiyo waa sidaase hooyo bishaaro bilkhayr hooyo bal ii sheeg bishaaradaa hooyo hodan uur bay leedahay maasha allah hooyo faysalow waad iga farxisa awal warwar baan ka qabay arrintiinna allah oo sideeya hooyo waxaan ka baqanayay hooyo inaad ku kala tagtaan arrintaa darteed waa sax waa wax dhici kara hooyo laakiin annagu waannu ku qanacsanayn qadarka ilaahay hooyo waxaa la yidhi labada qof intaanay carruur isu dhalin ma niyad sama hooyo weligayaba waannu jeclayn inaannu hooyo iyo aabbo noqonno insha allah allaha idinku sime hooye arbacada maadii keeni aan bun iyo salool u sameeye soo dhaaf wuu furan yahay salaamu calaykum isra iska warran sidee tahay alla walaal maadigiibaa iga raalli ahow qof kaleaan ku moodaye waan kuu soo kici lahaaye dhib malaysiray albaabkaa kuu xidhnaa oo imaad arkayni soo dhowo walaal iska warran xaalkaaga iyo qoyskiiba alxamdulilaah waa nabad qab waxaan islahaa ku gaadh waa intaasay shir u baxdaaye sow reerkii ma nabad qabaan alxamdulilaah inta badan xilligan waan joogaa haddii aanan shir ama shaqo degdega u bixin waa xilli hore ganacsigii ka warran iminka aad buu u soo dhaamaa sidii hore isray alxamdulilaah waxbay soo kala furfurmayaane maanta maxaan qabtaa wixii aan kuugu imiba mar baan iloobi gaadhaye saaka waxaan soo qaatay tallaalkii maasha allah waa tallaabo wanaagsan adigii dadka kaleba badbaada oo khayr hela soo qaataye laakiin maxay kuugu taallaa hee walaal maxaa khaldamay ma xanuun baad dareemaysaa isiray dumarka naafada ahi way ku dhibban yihiin qaadashada tallaalka aniga saakatay qabsatay ilaahunba u xisaabsan tahay salaamaad haye sidee walaal wuxu dhaceen iyada oo marka horeba baahiyahayaga gaarka ahi ay badan tahay haddana in dadka laxaadkooda u dhammayska tiran yahay isku sina loola dhaqmo ma aha waa run markaa isray arrinkaa waa inaad adigu rug ahaan gashaa oo u hadashaa dumarkaa guud ahaan sidii ay u heli lahaayeen tallaalka si fudud waa wardhan waan qaatay walaal waana ka hadlayaa arrinka adiga uunbaa qaadi kara farriintaa ayaan isidhi oo waa sababta aan kuugu imi fartuunna arrinkaa hore uga wada hadasheen isiray wax badanna waad naga caawisay ilaahay ha kaa abaalmariye hayee u yaraysan maayo miyaan kuu raacaa imika mise waad ka soo dhammaatay adigu waayo soo dhaaf assalaamu calaykum adeero jaamac waa yaasmiin maasha allah yaasmiinay soo dhowow fadhiiso adeero waan dhowahay soo ma wanaagsanid waa khayr iyo barwaaqo biyahan cab adeero
waxaan kuugu yimi adeer horta inaan si buuxda kuugu sheego inaan aqbalay inaan isu taago guddoomiyenimada rugta ganacsiga waad mahadsan tahay waan kaa filaayay bal ii waran haddaba waxaan kaloo kuugu yimi inaad xog isiiso xog dhankee ah yaasmiine axwaasha meesha taalla rugta ganacsiga ma adigaaba wax moogad mar haddaad isir kulanteen dhanka ragga rugta ganacsiga ku jira oo adigu aad ugu horrayso hee tala iyo taageeraba waan idinka baahana anigu taageeradayda horaan kuu siiyey markay isir ii sheegtay in lagula doonayo guddoomiyenimada rugta waad mahadsan tahay adeero hawshana waxaan kuu sheegayaa oo ay taladaydu tahay inaad mas-uul noqotid waa sax ololaha waxaad ku geli kartaa adoo taageera haweenka naafada ah ee ganacsiga ku jira sax sababtuna waxay tahay isir baa ii sheegtay in haweenkaas dhib badan qabaan adeer waa runo ganacsigooda la mid maaha dadka kale laxaadkoodu dhan yahay waaba intaa guul baan ku rajaynaya adeero horta ma kharash badan baa layga baahan yahay intaan tartanka ku jiro goor hore inaan iska dhammeeyo weeyaan intan asalaamu calaykum galab wanaagsan ruqya maanta buuxii makiinadda isla sheekaysi maa ku soo dartay niyaddaad iskala hadlaysaa baan islahaaye miyaad taagnayd goorahanba jaynaaniyow shaqadaan islaad hore isaga dhammaysidid haddaa soo gali xaalkaaga ka waranbo aad baan u nabad qabnaa iska warran nabad waaye maxaa kaa caawiyaa shaqadaa kaa badan waa arki waayaaye walaal mahadsanid anaa inta ku filan saaka dukaanka igraam imaanin miya walal saaka nooma iman ka warranba dukaanka macmiil badan ma haystaa iminka wuu soo yaro fiicnaanayaa macaamiishuna way soo kordhaysa talaan yahayaa maanta taladeedu waxa waaye deenta yareeya aad bixinaysiin taasoo qaadanaysiinna yareeya xayeysiiskana dukaanka u badiya waa tala aad u wanaagsan waan iska ilaalin doonnaa insha allah iiga warran hooyaysir aad ay u fiican tahay ololihii ay ku mashquulsan tahay maalmahan maasha allah dib ayay isu soo sharaxaysaa soo maaha maya markaan iidam isu soo sharaxoos waa iska dhaaftay alla maxay isaga daysay inaysa soo sharaxdo yaa kale dadka u shaqayn doona masaakiinta aad ayay ugu roonayday meel kale u socotaa iyada markaan yaasmiinay soo sharaxoosaa oo guddoomiye ka noqon doonto rugta ganacsiga waa war wanaagsan aad baan ugu riyaaqay haa qof booskaas aad ugu fiican waaye eedaday isirna iiday wadataa ay taageeraysaa alla ilaah way ku soo baxaysaa mar haddiiba isir ay taageersan tahay haa saa sheegta waaye waanu ku soo bixi insha allah aad baanu soo dhowaynayaa musharaxnimada yaasmiin laakiin waxaan ku weydiiyey jaynaaniyow adigii yaasmiin halkeebaad iska soo gashaa maryonay cuntadaada adduunka meel kastoo aan tago mid la dhadhana kama helayo xaajiiga daa waxaa soo ammaana yaananu dheel cunto lagu kariyo furanne xitaa haddaad hudheel furato cuntada sidaad aniga iigu samayso miyaad dadka kale ugu samayn kartaa waa runtaa xaaji si niyada ayaan adiga cuntada kuugu sameeyaa allaaya cisak xaajiye mahadsanid intaasoo sannadood baynu guri leenay maalin keliyaa ta koob shaahoodii soo samaysa maan cabbin waa runtaa dee annagu haddaannu rag nahay markii aannu yaraynna lama barin fadhiga unba wax noolagu keeni jiray caajiska waad u dhalateene maydaan baran kari waayen cabdiyow dee adiguna eedda barhkaagaad leedahay maalin qudhaata igumaad odhan sidana wax loo sameeyaa sheeko oo sideen kuu odhanayaa miyaan kugu qasbaa adiguba ma rabtid inaad naftaada u baratide maya dee laakiin haddaad i barayso waan iska baran lahaa haddaad diyaar u tahay inaad barato waan kuu bilaabayaaye yaan lagaa waayin iyo weliba sidaanu maskax furanahay maalin markaad i tilmaanto wixii ka dambeeya anaaba ku casuumaya waa arrin fiican haddii lagaa helayo kijada intaad soo gasho naftaadu inaad wax u barato aniga horta bal casuumaddeeda waa kuu dambaysee may taasi waa ballan laakiin keligay maaha inamadeenana waad baraysaa soo maha hajay inamadayda goormaan u bilaabay oo way barteenba ma meesha carruurtiina baratay baan ka maqnaa oo waayo miyaan karayaa inay sidaadoo kale xataa koob shaaha soo karsan kari waayaan ma hobtaa inaad naftooda u bartay mise waxaad u sii baraysaa inay cuntada u kariyaan hablaha aad sodohda u noqon doonto haa markay naftooda u bartaan danba waa ugu karin doonaan xaasaskooda sodoh wanaagsan iga dhe maryam ma anigu waar waan ogahaye horta miyaan kuu sheegay warkaan soo maqlay hee maya iimaad sheegin maxaad soo maqashay gabadhii kaltuun ahayd dee waa la guursanayaa maahee oo yaa guursanaya ma garanaysa odaygii jaamac ee igraan sodogo u ahaa maahee xaggaad ka soo maqashay warka adigu igraan iyo faarax baa isla rabo igraan baa ii sheegtay oo markaa odayga intaas leeg maxay kala doonayaan ina tayar ee u dhali karayo yaa oo adiga maxaa kaa galay waxaa la isku dhiseeyey inuu dhali karayo de waxba igama gelina ra'yigaigumaan dhiibtee maxaad la kullaanaysaa warkaagu wuu dheer yahay ku soco marba waxbaa kaa soo dhacdhacaye waad soo wada bixi doontaa laakiin war horta shayddaanka iska naar adiguba miyaanad ka xanaaqin maalintii aan kuu sheegayay isla igraan aabbaheedu warsame in gabadh yar miyiga loogu aroosayo
bay u mahadsan yihiin jilayaasha maadayska taliya tacab toddobaadka dambana qaybo kale oo cusub ayay dhegaystayaal inoo hayaan haddii eebba idmo gunaanadkii barnaamijka ayaynu soo gaadhnayay aan idinla wadaago qodobka barnaamijkani ku saabsanaan doono toddobaadka soo aadan waa shuruudaha ay bangiyadu deynta ku bixiyaan ma yihiin kuwo ku habboon duruufaha ganacsiyada jeebkoodu uu yar yahay qodobkan dhegaystayaal waxaad su'aale ka weydiin lahaydeen khabiirada dhinaca dhaqaalaha nagula wadaaga barta facebook aan ku leenahay BBC Media Action Somali oo aad barnaamijkan mar kale ka dhegaysan kartaan haddii kale su'aal cod ah waxaad nagu weydiisaan WhatsApp-ka lambarkiisu yahay eber 252 eber 1939 si aanu khabiirada ugu bandhigno barnaamijkii mawjadaha baraarugu dhegaystayaal toddobaadkan intaasi ha inoo joogo waxaa barnaamijkan maalgeliya hay-adda iskaashiga dibadda u qaabilsan dalka norway ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano norer toddobaadka dambe haddii eebba idmo inta ka horraysa waa cabdilaahi jaamac iyo safiya cali yuusuf oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadee xarumaha ganacsigooda xanaaniya dhiirigelin lexeeriyaba haboon safiya cabdullaahi aad u mahadsan yihiin anigana waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dunidayga maanta waxaynu ballanaa hadduu eebba idmo berri subaxtooda arrimaynta ka horreysa waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo